kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada mawduuceena maanta janaalka Barca 252. Ivan Rakitic ayaa iska diiday inuu January ku biiro Man United iyo sababtoo la ogaaday. Wararka ka imaanaya dalka England ayaa sheegaya in uu xiddiga khadka dhexe kooxda Barcelona ee Ivan Rakitic wax niyad u haynin inuu ku biiro kooxda Manchester United suuqa January. Wargeyska SBN ayaa sheegaya in kooxda Manchester United dooneyso saxiixa xiddiga khadka dhexe reer Croatia marka la gaaro suuqa January, laakiin xiddiga Barcelona ayaa diiday inuu ku biiro kooxda Man United sabab la xiriirta qoyskiisa. Isla wargeyska ayaa sheegaya in uu Rakitic ka tagi doono Barcelona suuqa January haddii uuna si joogto ah ugu ciyaari karin kooxda waqtiga soo socda. Kooxda Barcelona ayaa haataba go'aansatay inay iska iibiso xiddiga khadka dhexe marka la gaaro suuqa January, ayagoo u diyaar ah inay ku iibiyaan 35 milyan oo euro. Rakitic ayaa dalbo badan ka haysta kooxaha Man United, Inter Milan iyo AC Milan, laakiin xiddiga ayaa meesha ka saaray inuu u dhaqaaqi doono kooxda Man United. Janaalka Barca 252 fadlan rukuma janaalka haddaad ku cusub tahay. Intaan muuqaalka xiga isku arki doono, sidaas iyo nabadgelyo.